bismillaahi raxmaani raxiim. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo halkani waa Qoraxay Web TV xaruntiisa dalka Australia. waxaad si toos ah nooga daawanaysaan shabakada caalamiga ah ee www.qoraxay.com. daawadayaal barnaamijyadan maanta halkan idinku hayno waxay ka kooban yihiin waraysi aad u muhiim ah oo aan idinka hayno madaxa hoggaanka arrimaha dibadda ee ONLF mudane Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Mahdi Maadey mar uu safar gaaban ku yimid dalka Australia. intaas oo dhanse waxaa ka horeyn doona hordhac yar oo aan idinla socodsiin doono aniga oo ah Nimco Sharaf. kala duwan ee ku yimaada isbedelada kala duwan ee dunida ka jira isuguna jira kuwa siyaasadeed, horumar, isgaarsiin, dhaqaale iyo dhaqan, farsamo, ganacsi iyo masiibooyinka dabiiciga ah waxay raadreeb iyo saameyn ku yeesheen bulshooyinka adduunka. haddaba iyadoo taas maskaxda lagu hayo ayay khasab ku noqotay shucuubta in ay si ay kaalintooda u buuxiyaan inay ka faa'iideystaan horumarka haatan ka jira dunida si ay haddaba dunidu u ogaato xaqiiqda dhabta ee ka jirta ogaadenya iyo dulmiga lagu hayo shacabka la iloobay ee la hadhay gumaysiga ee ku habsaday ee asaagood ka reebay ayay warbaahinta Qoraxay Media isu xilqaantay in ay awoodeedu gaarsiiso in ay soo bandhigto Qoraxay Media xaalad walba oo la soo gudboonaata, in ay ka saarto caburiska saxaafadeed ee haysata shacabka ogaadenya, inay la socodsiiso heerka dunidu haatan marayso, inay ku guubaabiso sidii ay dulmiga uga bixi lahaayeen, inay ka hortagto si xun wuxuu sheega danaha gaarka wata, inay ilaaliso dhaqanka, taariikhda iyo suugaanta soo jireenka ah, inay ka shaqeyso aayaha qarannimada iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed, inay usoo bandhigto shacabweynaha Soomaaliyeed golo xor ah oo ay ku cabiraan aragtidooda. haddaba daawadayaal, wax walba oo insaanku qabto wuxuu leeyahay xilli ama waqti lagu xusuusto, taas oo mar walba lagu cabiro muddadii u dhaxaysay in lagu xasuusto wuxuu soo qabtay. warbaahinta Qoraxay Media oo warbaahin taariikh dheer ku leh bulshada Soomaaliyeed iyo ummado badan oo caalamka ku nool, waxaana la aasaasay xilli hadda laga joogo 12 sano. taariikhdu markay ahayd 12 Diseembar sanadii 1999 waxaana lagu aasaasay magaalada Sydney ee dalka Australia. shabakada warbaahinta ee Qoraxay Online oo 12 sano in ka badan ba jirta waxay Qoraxay Online sanadkii 1999 si toos ah hawada u gashay, isla markaana ay bilowday inay baahiso dhammaan wararka caalamka si dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dunida dacaladeeda ay si fiican ula socdaan akhbaaraadka kala duwan ee ka jira gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan Ogaadenya iyo Soomaaliya oo ah meelo dhibaatooyin badan ka taagan yihiin. Qoraxay Online waxay si gaar ah shiishka u saartay Ogaadenya oo uu ka socdo halgan gobonimo doon ah oo shacabka Soomaalida Ogaadenya uu xorriyad iyo aayihiisa ku raadinayo. tan iyo xilligii dhidibada loo aasay warbaahinta Qoraxay Online waxay bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ka qabtirtay dhammaan macluumaadkii ay u baahnaayeen, haddii ay tahay warar xaqiiqo ah, suugaan, madadaalo, gabayo, waraysiyo iyo weliba faalooyin hadba lagu eegayo xaaladaha markaa taagan. taas oo keentay in dadka sida tooska ah ugu xidhan website-ka ay soo diraan waraaqo dhambaala ah oo xambaarsan mahadnaq iyo bogaadin aan la soo koobi karin. daawadayaal lagu soo biiriyay 31 bishii koowaad 2011 markii ay maamulka iyo howlwadeenadu ka doodeen la arkayna baahida loo qabo in lagu soo daro idaacadda radio Qoraxay oo ah idaacad soo gasha maalmaha kale ah Isniinta, Khamiista iyo Sabtida. idaacadan radio Qoraxay waxay baahisaa warar, barnaamijyo, suugaan haddii ay noqon lahayd mid gobonimo doon iyo mid dhaqan, majaajilooyin, dhacdooyinka saameeya gebi ahaanba ummadda Soomaaliyeed haddii ay noqon lahaayeen kuwa xorta ah ama kuwa halgamada adag ugu jira in ay heeryada gumaysiga iska dulqaadaan. waxaana barnaamijyada soo tabiya soona diyaariya wariyayaasha u tababaran oo aad loo jecel yahay loona xiiseeyo, iyagoo adeegsanaya farsamooyin casri ah iyo kuwa iyaga u gaahsan kana kooban. waxayna radio Qoraxay soo gashaa
3 maalmood oo kala ah Isniinta, Sabtida iyo Khamiista ayada oo soo bandhigta barnaamijyo aad u tayeysan. Idaacadda Radio Qorraxay oo ku soo biirtay idaacadda Radio Qorraxay oo lagu soo biiriyay 31 January 2012 waxay noqotay idaacad si weyn u soo jiidata dareenka bulshada ayada oo aad looga dhageysta dhammaan adduunka oo dhan. Haddaba daawadayaal, annaga oo mar walba ku shaqeyna dareenka dadweynaha ayaa waxaana soo gaaray qoraallo badan oo ay dadku ku codsanayaan in aan Qorraxay Media u sameyno qayb muuqaal ah. Arrintaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay ku hawlanaayeen sidii loo bandhigi lahaa ayaa waxaa farxad u ah dhammaan dadweynaha sharafta leh in maanta lagu soo biiriyo Qorraxay Media qayb muuqaal ah. Dalalka Australia, Waqooyi Ameerika, Afrika iyo Yurub waxaadna ka heli doontaan hadduu Allah awoodda la ogolaado barnaamijyo aad u tayeysan oo aan ku soo qaadanayna hadba dhacdooyinka taagan. Haddaba dhammaan howlwadeennada Qorraxay Media iyo ururka suxufiyiinta Qorraxay, maamulka Qorraxay iyo tafatirayaashuba waxay idin leeyihiin ku soo dhawaada Qorraxay Web TV. waxayna farxad u tahay dhammaan bulshaweynta Soomaaliyeed, waxayna si gaar ah ugu tahay shacabka reer Ogaadenya. Daawadayaal, intaas waxaan kaga gudbaynaa taariikhda Qorraxay Media. Daawadayaal, weli inaga oo ku guda jirna barnaamijyadeena Qorraxay Web TV, waxaad haddana ku soo dhawaataan waraysi aad u muhiim ah oo aan idinka hayno madaxa hoggaanka arrimaha dibadda ee ONLF Mudane Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maadey mar uu safar gaaban ku yimid dalka Australia. Waxaana idin kala baxayaa wariye Maxamed Ibraahin iyo Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Mahdi Maadey. daawadayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan ka diyaarinayno mas-uul ka mid ah jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya Mudane Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maadey oo ah xubin golo dhexe ah ahna hoggaanka arrimaha dibadda ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya. Mudane Cabdiraxmaan waa mas-uul ka mid ah aasaasayaashii jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya. Wuxuu ka mid yahay 6 nin ee ururka aasaastay. Annaga oo maanta oo taariikhdu tahay 22kii bishii 3 sanadka 2012 uu booqasho gaaban oo uu ku yimid wadanka Australia aanu barnaamijkan kaga diyaarinayno magaalada Perth. Mudane Cabdiraxmaan, bal marka hore ku soo dhawow waraysigan aanu kula yeelanayno. Annagoo runtii aad iyo aad u xiisaynayna oo u danaynayna bal inaad macluumaad badan oo kugu aasan in aanu kula wadaagno oo bulshada qaybaheeda kala duwan ay ka daawadaan. Marka waxaad ku soo dhawaataa marka hore gacmo furan ku soo dhawow marka hore wadanka Australia. Marka labaad waxaan doonaynaa inaanu su'aal ka weydiino bal marka u horeeya meeshii aad taariikh ahaan adiga Cabdiraxmaan aad ku dhalatay. aad baad u mahadsantahay Mudane Maxamed Ibraahim
iyo dhammaan waxaan yani aan u mahad celinayaa bahda qoraxay media oo runtii qeyb libax ka qaadata warbaahinta maaragtay halganka taageeraysa arrinta ayada waxaa weeye runtii waa ku faraxsanahay waana idinku hambalyaynaa dadaalkaad sameynaysaan adigoo hogaamiyo ah kooxdaas maaragtay ogadan muxuaha qoraxay media group iyo dhammaan dhalinyarada wariyayaasha ee adduunka dacladiisa ku kala fidsan runtiina wax weyn baad kusoo kordhiseen meediyada halganka shacabka soomaalida ogaadanya waajibkiini waad gudateen kheyr badan baan idiin rajeynayaa taa waa midda guud aniga kolley waa saad u sheegtay cabdiraxmaan maxamed sheekh mahdi baa la yidhaahdaa hadda waxaan hayaa xilka hogaanka arrimaha dibadda waxaan ka mid ahaa raggii jabhadda wadaniga xoreynta ogaadanya dhidhabada u aasay oo asaasayaasheedii baan ahaa anoo yar baan soomaaliya imid muxuaha 1963 aakhirkeedii 64 bilowgeedii bishii janwari meelahaas intii ka dambeysay waxaan soo maray dugsiga hoose waxaan kusoo dhigtay magaalada Kismaayo dugsiga dhexena waxaan ku dhigtay Baydhabo qaybtii koowaad qaybtii labaadna Xamar ilaa jaamacadda heerka labaad Muqdisho kaga baxay anoo dhalinyaro aad u yar baan bilaabay halganka 72 ayaan bilaabay waxaan ka mid noqday muxuaha ururkii dhaqdhaqaaqa dhalinyarada xoreynta dhulka Soomaaliya Itoobiya gumaystaa la oran jiray 67 waxaan ku beeray labadii aakhirkeeda 73 bilowgeeda intaa wixii ka dambeeyay heerar kala duwan waxaan soo maray ururkaas oo ilaa shaqeynay 76 kadib waxa weeyaan waxa ku xigay ururka la oran jiray ururka dhalinyarada gobolka Soomaali galbeed oo ka mid noqday isla markaana jabhadda wadaniga xoreynta muxuu Soomaali galbeed waqtiga halganka qaaday ayadana xubin baan ka noqday 1994 bishii Agost 15keedii ayaan asaasnay jabhadda wadaniga xoreynta ogaadanya saasay ahayd mudan cabdiraxmaan waxaan doonaynaa bal inaad noo ifiso oo aad noo faa'iideyso waxaad ka mid tahay 6 ururka aasaastay baad ka mid tahay markii aad ururka aasaasayeen muxuu yahay hadafka ugu weyn ee marka idinku aad maskaxda ku haysay inaad ururkan aasaastaan mudane maxamed waxa weeyaan saad ula socotay guud ahaan halganka shacabkan ma bilaaban hadda halgan daba dheer buu ahaa annaga iyo gumaysiga Itoobiya marba magacyo kala duwan la baxaysay waaga hore Abasiina la oran jiray dagaal badan oo baan baa socday ilaa muddo hadda lagu qiyaas karo 500 sano Soomaalida iyo Itoobiya muxuu ahaa Abasiiniintu hardan baa ka dhaxay geeska Afrika runtiina Soomaalida ku guuleysanaysay laga soo bilaabo Axmed Gurey dagaalkii Axmed Gurey galay hardankaas muddo 500 sano wuu socday xilliyo kala duwan buu soo maray waxa ku xigay hardankii muxuu ahaa sayidka waxa ku xigay hardankii muxuu ahaa qarnigii muxuu ahaa kala guurkii gumaysiga markii la dagaalamayay qarnigii muxuu ahaa dagaalkii labaad adduunka kii koowaad adduunka waxa soo Soomaalidu way la halgamaysay yani muxuu ahaa gumaysiga Abasiiniya hase yeeshee kadib markii dagaalkii labaad adduunku dhamaaday Soomaali waa la kala qaybiyay qaarna xor bay qaateen qaarna gumaysiga bay ku hareen marka shacabka Soomaalida ogaadeen wuxuu noqday shacab gumaysiga Itoobiya loo dhiibay oo marka gumaysanaya Afrika xoogii waaweynaa ee Talyaaniga Ingiriiska iyo Mareykanka iyo muxuu dagaalkooda markay abiyeen halkaas aad 48 la goosay 46 la goosay in ogaadeen gumaysiga Itoobiya gacanta laga galiyo marka waxa wixii ka dambeeyay shacabkeenu halgan dhab ayuu bilaabay Nasrullahi baa u horeysay oo odayaasheeda waqtiga ahaa dadkii bilaabeen waxa ku xigay dagaalkii muxuu ahaa jabhadii la oran jiray muxuu ahaa jeeshka oo xoday lagu asaasay 63 muxuu ahaa 62 dagaalka halka ka bilowday 63 dagaalka hubaysan socday kadibna halka uu ku burburay kadib markii Itoobiya Soomaaliya soo weerartay adduunkuna soo dhaxgalay waxa ka ku xigay marka inta muddadaas ay halganka uu isdaba socday shacabkeenu halgankiisa uu wada ma istaagin 60 muxuu ahaa 7 baa dagaalkaas u istaagay kii kalena wuxuu bilowday dhaqaaq cusub bilowday dhalinyaradu marba waxa bilaabay marba dhalinyaradu cusub soo kacday halganka bilaabaysay way gumaysi intuu jira xanuunka gumaysiga marba uu jirayaa markii 72 dhaqaaqa dhalinyarada muxuu ahaa xoreynta Soomaali galbeed waxa la oran jiray waaga dhaqaaqa dhalinyarada xoreynta dhulka Soomaaliya Itoobiya gumaysato waagii la asaasay muddo 3 sano gudahood Soomaaliya markuu joogay dhalinyaradu way gadoodeen waxaan ka mid ah dhalinyaro qabdahare u kacdo yiri gudahan halgan ka bilaabayna intii Soomaaliya ku hartana waa la xiriiray annaga qabdahare aadneen waxaan lagu qabtay jiraale meel yiraahdo muddo waxaan ku xirnay 6 bilood qabdahare markaan soo rogaal celinay haddana mar labaad baan kacdoonkii dhalinyarada bilownay 1998 waan ururka dhalinyarada ururka dhalinyarada gobolka Soomaali galbeed haddana waxaan ka asaasnay muxuu ahaa meel iskool booliisiya la yiraahdo oo xamar ahayd baan ka asaasnay
halkaasa dhaqaaqi mar laba dhalinyarada xoogeystay dhaqdhaqaaqaas marka wuxuu ku jeeday jabhaddii waqtigaa jirto WSF la oran jiray oo ahayd jabhadda dowladda Soomaalida ay gacan weyn ka geysatay ayaa waxay noqotay jabhad aan danta dadkii lahaa gacanta ugu jirin wuxuu noqday ciidan xoog badan oo shacabka iyaga ayaa WSF ayaa ka dhashay halgan arday halkii ka dhacay muxuu ahaa Soomaalida ogaadeen muxuu ahaa Ethiopia dhaxmaray isla markaana dowladda Soomaalida gacan weyn bay ka geysatay oo ciidankeeda lafteeda ka qayb galay kadib markii dagaalkaas uu burburay anagu waxaan kamid ahayn raggii lahaa dagaalkan ma haboona in dadka loo daaya fiican walaalaheena dibadda naga taageeraan waqtiga ayada taladeena lama dhageysan dagaalka waa la wada qaaday runtii wuxuuna keenay fashilkii weynaa oo ilaa yani sharciga caalamkii alle muxuu ahaa ayadoo loo adeegsanay Warsaw ay kasoo qayb gashay walaalahan Soomaalida burbur badan ka gaaray dagaalkii markay ka soo noqdeen WSF runtii waxay ahayd marka inay hana qaado oo markay halkan ka soo jeesato ma ay noqon waxay noqotay golo qabiil oo reero kala fadhiyaan waxaan hadda 4.5 kale Soomaaliya lagu ablay garay oo kale golihii WSF u sameysnaa yani urur qabiil buu iska noqday oo qabaa'ilka Soomaalida galbeed deganaa reer hebel inta laga sii kana ka baxay barnaamij tawri ah hadaf oo halganeed ma lahayn inta waxa dheeraa muxuu ahaa naftooriyaashii oo daryeel xumo badan ay ku dhacday oo muxuu ahaa dhaawacooda cidna daryeelin marka dagaalkay galaan wixii ka soo baxay waxba lahayn barnaamijka yani halgankii wuxuu noqday halgan dibadda laga maamulayo xamar oo xaruntiisu tahay xubnaha golaha dhexe ay ku mashquulsanayeen hadba lacagtii la keenay ku murmayeen markay ahayd 1998 iyo kowdii oo ayuu go'aan bay gaadhay waxay tiri Ogaden is part of Ethiopia runtii waxaan filaynaa halka inuu gadood cusub ka dhasho kacdoon badan ka dhasho si fiican loogama jawaabin arinta lafteeda aad bay noo saameysay adoo markaan fi eegnay mustaqbalka ummadayada iyo dhibaatada halkan ka haysatay iyo sidii dagaalkii weynaa ummadda Soomaalida wadawda halka fashil uu ka yimid waxaa laga maarmaan noqotay marka inaan dib u fiirno halgankii waxaan isku daynaa xoogag abuurno xoogag dhalinyarada iyo haweenka iyo muxuu ahaa dhalinta shaqeysa iyo aqoon-yahanka in muddo ah waxaa socday dood badan baa socotay ilaa 8 saan ma nageyn kartaa maxaa mustaqbal noo ah halgan gudihiin laga asaaso arrimahaas oo idil muddo badan markay socotay waxaa soo baxday marka inay laga maarmaanta in halgankii la wado markay ahayd bishii December 1983 ururka dhalinyarada gobolka Soomaaliya galbeed bayaan buu soo saaray la oran jiray ka kacaankii dhabta ah ma dhalan arintaas waxaan ku markaa ku challenge gareynay golihii dhexe markaa WSF golaha dhexe markaa waajibkiisa gudan waayay kadib arinta markaan ku dhawaaqnay jabhadda wadaniga xoreynta muxuu ahaa WSF golaha dhexe waxay go'aan ku gaareen in la xirxiro ururka dhalinyarada waa la xirxiray mas'uuliyiintiisa xabsi waa lagu guray ilaa dhalinyaro muxuu ahaa boqolaal gaaraysa xabsiga Muqdisho ilaa muxuu ahaa Hiiraan meel walba qaxootiyada meel walba dhalinyarada waa lagu xirxiray markii xabsigii aan galnay waan ka soo baxnay waxaan go'aansanay in halganka mar dambe saan isku sii socon kareen WSF la midali karin sababtu waxay halgan shacabkii lahaa uusan gacantiisa ku hayn taladiisa halgan ma noqonay marka waxaa saldhig u ahaa aasaaska halganka ummadda Soomaalida ogaadeen iyo jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen ee dhalisay wuxuu ahaa in talada shacabkaas ku soo noqdo shacabkeedii oo halgankaas wixii hadda ka dambeeyay cid kale aanay u maamulin halganka shacabka lahaa oo gacanta ku dhigo taas saldhig u ahayd iyo midda labaad in la kala saaro يعني waxay Ethiopia ku guuleysatay muddada 30 sano inay tiraahdo jamhuuriyadda Soomaaliya dhul balaar sameynayso dhul qaadanayso marka adduunka in loo muujiyo in halganka ka socda ogaadeen iyo sanayn halgan dawladda Soomaaliya ee wada uu yahay halgan shacabka Soomaaliya ogaadeen degan ay wadaan hase yeeshee walaalaha Soomaaliya inay taageerayaan laakiin dadka in halganka iska leeyihiin si taalo cadeeyo marka in laga sooco marka isku milanka ah yani in jamhuuriyadda Soomaaliya isku balaaranayso labada qodob baa salka u weyn aha iyo qodobka saddexaad oo in yani halgankan uu mabda thawri ay yeesho oo shacbi ah oo ku salaysan muxuu ahaa isku tashi mintid midnimo iyo halgan qabiil ku dhisnayn aan total qabiil la abeeyeen inaan qabiil loo abeeyeen qof kasto halganka diyaar oo cid rab ha noqdo hatta haday noqdaan muxuu ahaa in dayar iyo muxuu ahaa sheenka halganka taageer halganka inuu furnaado oo ku dhisnaado yani qadiyad iyo aaminsanaad mabda halganka la aaminsan yahay kaasoo ay shacabka Soomaaliyeed ogaadeen xorriyad ay ku gaarto ay ka talin طبعا مدن عبد الرحمن xilliga aad asaasayseen ururkan ONLF lixni baad ku asaasteen ururkan ujeedadii hadafkiina waa sharaxay marka aad u asaasayseen ma u arkaysay marka xabsi intee la egsabaad marka ka qabteen dawladdii marka Soomaaliya ee xilliga jirtay oo raalli ka ahayn ururkan aad dhistaan saad la socoto ururkaygu waqtiga la asaasayay waxaan ahayn lix xubnood oo xubnihii asaasay ahaa iyo ururkii dhalinyarada gobolka Soomaaliya galbeed xoogii wuxuu hawshan fulinayay saad la socotay xabsi baan waaga ka soo baxnay waxyaabahan lagu xiray waxa kamid ah in
dalka Soomaaliya mardan dhaqaaq siyaasi aan ka gali karin qodobadii markii xabsigan ka soo baxnay waxa inta dheeraa dawladda Soomaaliyeed oo arkaysa ururkan waxa ay doonayeen maamuleyn inuu khatar ku yahay siyaasadeeda iyo deganaanshadeeda labada shay awgood dawladda Soomaaliya marka diyaar uma ahayn ururkan asaaskiisa marka waxa hubantii aan leeyahay hadii ogaadaan talaabo inay naga qaadi lahayn dhibaato u keeni karto xubnihi asaasi iyo halka guud ahaan saa awgeed wuxuu ururka qarsoodi buu ahaa nidaamku ku shaqeynay wuxuu ahaa waxa la yiraahdo xubinka nidaam unugeed baa la abuurayay unugaas hal qof oo kamid ah in baa ogaanay maamulka ka koreeya waxa la asaasay markii u horeysay waxa la dhisay maamul la yiraahdo hogaaminta halganka waxa ku xirnaa xubno yar oo kooban مثلا unugtii u horeysay la asaasay waxa gudoomiye ahaa mudane cadaani oo hadda Cabdiqaadir Xasan Hirmooge oo maanta muxuu ahaa gudiga fulinta jabhada kamid ah marka waxay ahayd mar walba xubinkaas asaga abuuriyay xubnaha kale marka aad buu qarsoodi u ahaa ururka muddo badan buu saasuna ku guuleystay laakiin khatar weyn ku imaan lahayd hadii la ogaado mudan Cabdiraxmaan inagoo wali ku guda jira barnaamijkii taariikhiga ahaa ee nooga warramaysay aan ku wareysanayna anagoo Qoraxay Media bal waxaan doonaynaa in aad dadweynaha Soomaaliyeed iyo dadweynaha reer Ogaadeniya ee si guud macnaha ku daawanaya barnaamijkan bal in aad u ifisid waxa jira inta badan wadankani taariikh dheer buu soo maray taariikhda uu soo maray dabcan waliga xabadu kama istaagin kolba qolo baa aan qoriga qaadaysiin dawladii ururkii WSLF ee dawladda Soomaaliya ay taageereysay waxa lagu tilmaamay inay ahayd qoodii ugu badnayd ee wadanka ka dagaalanta waxaana la ogyahay in si dhib yar ay u fashilantay oo burburtay sidaas sheegaysana de wax ma ahayn iyadu sal wadanka ka askumantay wax laga soo bilaabay dhanka Soomaaliya ahayd dadweynaha reer Ogaadeniya ku daawanaya waxaan doonaynaa bal inaad u ifisid maxaa diiday in dadka u dhashay wadankaas ee aqoon-yahanka ah ee siyaasiyiinta ee xilliga joogay ee qaarkood Soomaaliya ay wax ku barteen qaarkoodna ay Ogaadeniya ay joogeen maxaa u diiday in ay fikirkooda ay ku saldhigaan gudaha Ogaadeniya intii ay Soomaaliya ay siyaasadda ka bilaabayeen saad la socoto dalkayga markii Itoobiya ay la wareegtay talaabada koowaad qaaday wuxuu ahaa inay waxbarashada ka baabayso saad la socotaan qarnigii markii uu dhamaaday dagaalkii labaad adduunka dadkeenu badan afka kaliya yaqaan afka Carabiga diintay ku dhigan jireen yani xadaaradooda waxay xaraad ku dhisan luqada Carabiga كو تلاوي وهري حال ساس وقاد واحد دوكسية محافظ عربي قال ورينا إنه ممنوع وعقله ممنوع دمان هذه وحبرشة مذهب بنانا تاو حي كان الشعب كيجو إنه سن أوهل فرصة إنه كبرت ضلك وقاعدين وحبرشة لقلد علمي سكولي يروح لي لبا سجوا ضد خاصة وقلت له قالين وكتها برسية أفك حبشة جو برتان موجي مركز ضد كانوا ماشي كلي وسوق كرين وكلي كرين كلامه حين قصد دولة سوالي حاجة سوق حان taasoo keentay marka aqoon-yahanka dadkeenu ay lahaayeen baynu dad Soomaaliya wax ku bartay inuu noqdo oo gudihii Ogaadeniya aqoon-yahan ku filan ay aanay joogin taas marka waxay keenaysaa meesha ilbaxnimada iyo adduunka warbaahinta iyo xadaaradda iyo xorriyadda ka helayaan wuxuu ahaa walaalada Soomaaliyeed inay yimaadaan midda labaad yani waa in lagu mahadiyay dawladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed si fiican bay u soo dhaweeyeen albaabadooda u fureen runtii fikir ayaga dad xor ay noqdeen oo kamid noqday maamuladii meesha ka jiray waxay noqdeen dad halkaas ku noqday muxuu ahaa yani ilbaxnimadii iyo horumarkii iyo muxuu ahaa walaalada Soomaaliyeed bay la wadaageen taa marka waxay keentay in ay jireen dad saas oo kala oo ayaga lamid ah wadanka gudaha Ogaadeniya jira qofkuna marka uu meel maaragtay intuu u yimaado nidaamka kamid noqdo ku milmo waxa weyn noloshaas wala qabsanay ku noqoshada ku adkaanaysa haseeshee mar walba saad la socoto ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliya dimuqraadiga Soomaaliya ama saraakiil ha noqoto ama ciidanka caadiga ha noqoto dadka u badan waxa ay Soomaalida Ogaadeniya taana waxay keenaysaa sarkaal walba ama shakhsi walba oo Soomaalida Ogaadeniya markuu halka imaanay hadafkiisu wuxuu ahaa in dalka xoreyntiisa uu ka qayb galo marka shacabkaasu iyo dadka hogaamiyaasha noqday dhamaantood qalbiga ku hayeen Ogaadeniya inay xoroodo haseeshee laakiin nidaamka Soomaaliya ka jiray wuxuu abuurmay wuxuu ahaa dawladda Soomaaliyeed wax inay xoreyso meeshii gumaysi ku haystaba marka barnaamijka guud ee Soomaaliya ka socday ayaa saameyn ku yeelanayay qofku way ku adkayd inuu kaligiis madax banaan uu dhaqdhaqaaq siyaasi intuu u abuuray inuu dalka ka qayb galo hadduu ka qayb galana waxa talaabooyin baa laga qaaday dad mas'uuliyiin badan dadkeena xarig baa waa la xiri jiray waxa kamid ah maxamed diire wardo Allah u naxariis dadka xariga galay waxa kamid ah saraakiil badan oo Soomaaliyeed isku dayay inay isbedel ka sameeyaan dalkaas oo xarig la galin jiray hadafka ummadda Soomaaliyeed markaa jiray wuxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed hal tahay dawladda Soomaaliyeed ka wakiil tahay waxa iyadoo ayna wadin la ogolayn
laakiin cidda mar walba kacdoon kicinaysa waxa ka gadoodaysa waxaan dhalinyarada yarka oo marka ay cabsi culmoogaha waan cabsi ka cabsanin taas mar walba gadood ka abuuri jirtay qasay shay wax garadka Soomaalidu ogaadeen iyo aqoonyahankeeda inta urura qarsooday inta marba la abuuray way ka fashilmayeen marka kadib dagaalkii muxuu ahaa 77 markuu dhacayna aad ba dadku uga qayb galeen iska dhaaf muxuu ahaa Soomaalidu ogaadeen shacabka Soomaaliyeed ba si buuxda uga qayb galeen hase yeeshee wuxuu noqday dagaal ciidan ahaan u dhisan laakiin siyaasiyan aan u dhisnayn taasaa keentay marka inuu hana qaadi waayo socon waayo oo dadkii muxuu ahaa dagaal halgankan lahaa siyaasiyan ay u bislaan ciidanka ugu xoog badan geeska Afrika ciidamada WFS baahayna oo aan ka yaran ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliya ee waddanka ka dagaalamay nasiib dar laakiin ciidanka quwadda inta leeg wuxuu u burburay hadaf siyaasi oo cad oo iyo hogaamin siyaasi oo cad ma lahayn taasa keentay marka burbur inuu keeno laakiin waxaan oran karnaa aqoonyahankii shacabka Soomaalidu ogaadeen ee Soomaaliya wax ku bartay iyo wax garadkii sidii loo baahnaa kama qayb galin halgankaas yani inay waqti horaan qaadaan waqti horaan ka dhaqaaqay taasa keentay marka in dhalinyaradii marka aqoonta marka muxuu ahaa aqoontooda iska muxuu ahaa horkac ahayd inay gadoodka sameeyaan ay dagaalkan ka qayb galaan waxaa jirtay dhowr goor jaamiciin muxuu ahaa gadoodii gudaha intay gashay hadana ka soo noqotay 2-3 goor oo isku daday inay galaan hase yeeshee qaab urur ma sameysneen sidaadan loo socoto hadda waa sida Soomaaliya haysato kale sidiisaba urur siyaasi haduusan jirin umad hogaaminaya waxba yani qof shakhsi oo gadooday meel ma gaaraya marka aqoonyahan badan oo dadkeena oo kacay way jireen ay shakhsiyaad kacay saraakiil kacay way jireen laakiin si shakhsi ay maartay isku dayeen u kacaan taana meel lagu ma gaarin laakiin markii ururka siyaasiga uu soo baxay urur siyaasi uu soo baxay ururka dhalinyarada soo baxay kadibna oo aan la fay soo baxday waxaad garan kartaa awood urur siyaasi uu leeyahay taasa marka yani hana qaadi ya keentay laakiin shakhsiyaad badan oo runtii kacsanaa way jireen dadkeena ilaa muxuu ah 60kii saasun bay u gadoodeen u kacayeen hase yeeshee hadda wada waraysato kulli qaar badan oo Soomaaliya wasiir ka noqday qaar ka horeeyay marba 60kii dhalinyarada kacday 70kii dhalinyarada kacday 80kii dhalinyarada kacday 90kii dhalinyarada kacaysay marka mar walba kacdoonka dhalinyarada oo marka dambe isu bedelay siyaasiyiin hadda wadayaal wali inagoo ku guda jira waraysigii gaarka ah ee aan la yeelanay madaxa hoggaanka arrimaha dibadda ee Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogaadeenaya Mudane Cabdiraxmaan Sheekh Maadey oo aan si gaar ah u waraysanayno oo aan doonayno inaan ka faa'iideysano muddadii dheerayd ee Cabdiraxmaan uu ku soo jiray halgankan dheer ee wali socda ee hadda ay mijaraha iyo u shabaay u haysto Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogaadeenaya inagoo wali Cabdiraxmaan waraysigeena sii wadna 1991 ilaa 92 isbedel weyn baa geeska Afrika ka dhacay dawladda Soomaaliya way burburtay dawladdii Itoobiya ee Mengistu markaa madaxda u ahaana way burburtay gobolkiina wax macnaha qorshe ah oo markaa jiray oo ama u dhisnaa ama markaa u yaalay muuse jirin idinka jabhad ahaan markaa maadaama oo 84 aad bilowdeen xilliga isbedelka ah ee dhacay bal laba su'aalood oo saaran kow maxaad uga faa'iideysan weydeen waa qodobka labaad ee kale doonayna ku weydiiyo waxa weeyaan sidee buu u saameeyay bulshadaasi isbedelka ka dhacay wadankaas tahay saad ula socoto markii oo la falaasay 1984 watan ku sheegay urur qarsoodi ahayd taageero ma haysan xubnaheedu uu koobnaa Soomaaliya walba isbedel ka socday marka hana qaadkeeda waqti buu qaatay waxay ahayd in unugyo la abuuro unugtii u horeysay waxa laga abuuray Soomaaliya ogaadeen gudaha laga abuuray xubnihii u horeeyay la 6 bay ahaayeen xubnihii baa tarmay oo suu rogay ururka dhalinyarada Soomaaliya galbeed ee isu rogay xubnihii jooxintii ka taageertay marka Soomaaliya gudaheeda isku fidinayay mid labaad wuxuu u baahnaa siyaasad dibadiina waxa la bilaabay in unugyo dibadda la abaabulo marka ilaa 4-5 sano ururku dhismo ku jiray qaab asaas dhisay inta waxa garab socday siyaasadii geeska Afrika ka dhacaysa urur waxa jiray la dagaalamay Itoobiya sida ururada Eritreyiinta ururkan TPLF maanta xukunka haysta dhamaan ururada tacaamul balaad calaaqad fiican balaad hase yeeshee markii uu soo dhawaaday muxuu ahaa isbedelka Itoobiya ka dhacay Soomaaliya burburkeedu soo dhawaaday oo aan la ciidan ahaan uma dhisnayn siyaasiyiin urur dhismay oo koray u ahaa qarsoodi ah cid walba ay la dagaalamayso cid walba ka dhuumanay marka isbedelka ka dhacay geeska Afrika isbedel degdeg ah dhacay runtii oo lama filaan oo burbur degdeg ah siyaasadii markay burburtay shuuciyadda waxa dhacay dhammaan dawladihii muxuu ahaa ku xirnaa yani nidaamkaas oo idilba hal mar dhulka ku dhuftay marka waxay timid isbedel degdeg oo marka aan loo diyaarsanayn inuu ka dhaco Itoobiya isla markaana awoodii marka Itoobiya qabsay noqotay ururadii muxaawarka oo wada halgami jirnay ururadaas mowqif ahaan meel badan ma ku kala duwaneen
مثلا urka TPLF iyo ONLF waxay ku kala duwanayeen TPLF marba waxay lahayd dhibaatada yani ogaadeen waa arin gudeed weey waa arin wax la yiraahdo national question weey waa qoomiyad u baahan xuquuqdeeda inay hesho ONLF waxay lahayd ma national question ma ahna waa colonial question waa arin gumaysi arin qoomiyadeed ma qoomiyad yani xaqeeda u dagaalamayso doonaysa inay muxuu aha xaq shamaahay waa qoomiyad waa dad la gumaystay oo gumaysiga inay ka baxan doonayay qodobka ayadoo la isku hayay ay Ethiopia isbedel ka dhacay maamulkii markii ay qabteenba maalinkii qabteenba TPLF waxay go'aan ku gaadhay inay nidaamkii hore ku adkaysato ONLF way afgaran waayeen waxay doontay odayaashii WSL hogaamin jiray oo ku xaraq qaxooti ku taala qoryoolay joogay bay soo qaadeen heshiis bay ka saxeen oo inay charterka ay ogolaadaan ONLF markay xaaladda siyaasiga diristay mas'uuliyiintii markaa hogaaminaysa go'aan degdeg ay gaareen waxay go'aan ku gaareen maadaama isbedel uu dhacay maadaama dhulkii awood badan ay ku lahayn inay nidaamka ka dhex faa'iideystaan oo dadkooda ay diyaariyaan dadkii waddanka joogay dadkii Soomaalida ogaadeen wada shay qaarna qaxwi ahayn qaarna waxay ahayn dadka xabsiga ku xirnaa Ethiopia Afrika gees ka fadhiday dadkeena way jabeen qaxootiyadii baa lagu laayay dhibaato badan ma ku gaadhay Soomaaliya dhulkii bay ku qaxeen duruuf aad u adag qalafsan ayaa markaa soo saartay ma jooxo jawada wadaniga xoreynta ogaadeen waxay noqotay in marka ay aqbasho nidaamka Ethiopia marka inay ka faa'iideysto labadaas isbedelka dadkeeda ay diyaariso xubnaheeda ay wadanka ku beerto ay unugyada dhisto ay ciidan ahaan u dhisto marka la falgasho markaasi barnaamijkeeda siyaasiga ay u suura geliso marka runtii way ka faa'iideystay jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen labada sano wadanka gudihiisii waxay nidaam dadkii muxuu ahaa soo qaxay way dejisay waxay kaloo ka faa'iiday inay ku xididaysato soo ogaadeen oo markii koowaad ay u heshay fursad si xor ah ay falgal uga sameeyso waxay abuurtay ciidan qaran bay abuurtay waxay abuurtay nidaam maamuleed waxay abuurtay doorashada bay ka qayb gashay way ku guuleysatay yani waxay sugtay in yani dadkaas ay maamul dhisan karaan inay muxuu ahaa ismaamuli karaan inay ciidan abuuran karaan inay siyaasadooda soo bandhigi karaan tii marka waxay fursad u siisay kalsoonida shacabkooda inay hesho way xilliga wixii ka horeeyay shacabka badankiisa Soomaalida ogaadeen aad lama soconaan la faxayta waan magacahan iyo fikrahan way maqlayeen laakiin si balaaran mass base ulama socon marka boqolaal kuno xubnood ay abuurtay ururadii bulshada abuurtay shacabkii Soomaalida ogaadeen waxay u sameysay muxuu ahaa wax la yiraahdo identity jiritaan iyo dareen iyo maat inay leeyihiin dal inay yihiin inay calan leeyihiin inay muxuu ahaa urur leeyihiin siyaasadoodii marka guul bay runtii waay talaabada koowaad ee ONLF ku guuleysay marka waqtigaas ay taasay ahayd waxay yani labada sano way ka faa'iideystay ONLF identity bay abuurtay waxay sugtay adduunka oo sugtay dad inay jirayeen dadkaas khariirad leh marka nidaamkii gumaysiga laftiisi waxa weeyaan yani ma uusan jeclayn waayo wuxuu rabay inuu abuuro xoog kale oo ONLF ka soo horjeeda waxaad la socoteen inuu ilaa 16 urur abuuray inuu dadka qabiil inuu ku kala geeyay abuuray inuu goboladii dadka isaga horkeenay inuu dagaal sukay abuuray inuu abuuray laakiin ONLF way ka adkaysatay 16 or waxay tiri waa free dimuqraadiyad weeye nin alla ninka raba uu raasamaysto tartan baan galayna tartankii way ku guuleysay boqolkiiba 90 wax ku dhow way ku guuleysatay maamul bay dhisay maamulka dhistan iskuma koobinay macal xisbiyadii badnaayaha wax bay ka siisay xukunkii waxay dhisay maamul dawladeed bay dhistay nidaam waxbarasho waa markii koowaad af Soomaaliga muxuu ahaa inay kutubo ku qoran bay abuurtay تعلينتي waxbarashadii bay dejisay maxkamaday abuurtay ku salaysan xukunka islaamiga ah oo dhamaan maxkamadii awal hore waxay dejisay muxuu ahaa qaaliyadii dadkii muxuu ahaa sheekhyada wadanka maxkamadii u dhiibtay nidaamyadii muxuu ahaa waxbarasho nidaam caafimaad nidaamkii dawladnimo dhisnaawada bay diyaarisay nasiib darro laakiin maamulkii marka Tigray uu hogaaminayay arinta raalli kama ahayn waxayna marka arkaan kacdoonka yani shacabkan isay diyaar ugu yihiin maartay muxuu ahaa xorriyadooda u hantaan waati soo saareen dastuurka cusbaa waxa ka horeeyay tirakoob inay sameeyeen tirakoobkaas oo aan ku salaysnaa xaqiiqada ogaadeen oo isku dayeen inay yani runtii ay tirakoob ay dhoobeen oo awoodda ONLF ku yareeyeen meelaha isleeyin ONLF ku xog badan tahay ay boqolkiiba ay ka soo qaadeen 5 iyo 2 meelaha isleeyin ONLF laga badan yahay boqolkiiba 200 waxaan jirnay ka abuureen waxay kala abuureen dastuurkan cusub ay keeneen oo aan runtii ahayn wix la isku waafaqay oo yani charterki oo fursad uma insiin yani in yani shacabkaas wadanka wax ku lahaa oo yani muxuu ahaa ilaahayn yani federaal bu kamid yahay dastuurka markay dejinayeen lagama talagelin wuxuu ahaa dastuur u adeegay Ethiopia wuxuu ahaa dastuur yani issue muxuu gumaysiga shacabkeena aan wajahayn inkastoo ay ku qoreen ay ka talin baa jirta laakiin wuxuu ahaa nidaam ay isugu talagaleen ayaga yeerateen inay ku baxaan markii arinta ay cadaatay waxa weeyaan oo la faay isku dayeen Ethiopia wada hadal ay la yeelato ergadii u horeysay la magacaabay oo aan kamid ahaa muxuu ahaa Maxamed Cabdi Yaasiin loo xil saaray man kamid wafdiga Ethiopia inuu la xaajoodo ayadoo wafdigii uu joogay oo rabay in la xaajoodo Ethiopia
ayay weerareen gudoomiyihii ururka ay ku weerareen muxuu ahaa wardheer waxay dileen yani mas'uuliin sare oo aan lafa oo ay kamid ahayn gudoomiyihii degmada Qabridahare Allahu naxariisto mudane Maxamed Cumar Tube iyo muxuu yani maayarkii magaalada muxuu ahaa deeq Allahu naxariisto deeq Maxamed Arab يعني waxay kala dileen Cabdullaahi Ganay ku dileen muxuu ahaa goday waxay dileen muxuu ahaa waxay weerareen muxuu ahaa wardheer waxay godayba ku weerareen shacabkii oo qoriga ka qaateen oo ay ku laayeen يعني saasay waxay marka bilaabeen inay laayaan yani madaxdii oo aan lafay bilaabeen siyaasiyiinta ahaa la doortay xisbiga ay dawladdu shaqeynayay marka macnaha oo laf kama faa'iideysan way nidaamkaas way ka faa'iideysatay laakiin dagaalkana ma aan bilaabin waxa dagaalka keenay markii cadaatay inay laynayaan oo declaration ku qaadan oo laf qasab waxay noqotay markii shacabka la difaacana wana isdifaacana marka nidaamka waan ka faa'iideysanay runtii guusha maanta aan taaganahay Ethiopia aan runtii siyaasiyiin iyo askariin jabinayna labadaas sana gundhigi la sameeyay ayaa runtii keenay runtiina waxa ma haddaas kale mas'uuliintii waqti ururka hogaaminaysay markii shirweynaha koowaad ee lagu qabtay wadanka ogaadaysa waa la ogaadayay Sheekh Ibrahim la doortay iyo golihii dhaxalka laga doortay oo runtii si xigmad leh runtii u fuliyay arinta ayada runtii mahad weyn aan u hayna shacabka Soomaaliyeed ogaadeen dhamaan ay u hayaan dawadayaal waliina ku guda jira waraysigii waxaan doonaynaa balan mudane Cabdiraxmaan haddana su'aal kale weydiino dabcan 94 dagaal baa bilowday oo jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ay ku dhawaaqday in ay dagaalamayso oo is xoreynayso dagaalkaas hadda wuxuu madaxa geliyay 20 sano u sii dhow yahay muddadaas aad dagaalka bilowdeen ilaa maanta oo aan joogno ma isleedahay ujeedadii aad dagaalka u qaadeen waad ku taagan tihiin mise wali maydaan sidii la rabay wali maydaan gaadhin sidii la rabay ma aan gaarin way anagu waxaan rabnaa wadanka xoreyno wadanka wali xor ma aha laakiin waxaan ku guuleysanay 100% qaabkan ugu talagalnay siyaasadda aan u jeedin istaraatiijiyada sidii aan ugu talagalnay way u socotaa waxay ahayd kow inaan abuurno halgan goobnimo doono hubaysan oo shacabkaas ay leeyihiin oo ayagu maamulaan oo ujeedada shacabka walaha gaarsiinaya oo in xornimo doon ay gaarsiiyaan midda labaad waxaan ku guuleysanay inaan qaliyadeena ay adduunka ku fido oo maanta adduunku og yahay in ummadaas dhibaato lagu hayo la gumeysanayo qodob labaad baa midda saddexaad waxay ahayd ujeedadii aan lahayn oo kale waxay ahayd in gumeysigan uu intuu fursad u helo in dhulka uusan la wareegin oo istaraatiijiyadiisa fog oo aan ognahay oo la socono ay kamid tahay in dhulkan shacab lagu beero muxuu ahaa Ethiopian inta buuraha laga soo raro in dhulkeena la dijiyo khayraadkiisa la wareegaan tiina waan ku guuleysanay inaan hakino tan kale aydan ujeedadu ahayd in Ethiopia intay halka shaqal ka qodato dhulkan ay khayraadkiisa la baxdo isla markaana dadkan ay xoolo iska raacaan aydan waan ku guuleysanay wax badan baa noo dhiman meeshan doonayna wali lama gaarin haseeshe waxaan aaminsanahay in wadada saxda ah ku soconno guulo badan aan gaarnay waxyaabo badan noo dhiman yihiin laakiin guusha kama dambaysa ilaa aan gaarno wadankan xoreyno ujeedadayna wali ma aan gaarin ma oranaynaa laakiin hadafkii aan doonaynay iyo halgankii shacabka aan doonaynay inuu wada uu ku socdo wadadiisana uu ku socdo duruufaha marka la fiiriyo hareereynaya halgankan oo runtii duruufo aad u qalabsan ah iyo guusha aan gaarayno runtii wax isu dhigmi kara ma marka waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed ogaadeen runtii wuxuu muujiyay dadnimo inta laga filayn ka badana dheeri ah wuxuu muujiyay karti wuxuu muujinayaa yani inuu runtii xoriyadiisa inuu xanta maanta uu doonayo runtiina waxaan oran karnaa waa loo baahan halganka inuu soo daba dheeraado waayo maanta dadkan waxay diyaar u yihiin maamul ay leeyihiin inay hantaan xoriyad raqiis oo si maartay wadamada qaar intay helaan markii farahooda ka baxdo qabiil isu qabsadaan runtii waxa ka fiican inay halgan dheer maraan dhiigooda daadiyaan waxay ku naalan karaan ku faani karaan gobnimadooda adkeyn kara sida hadda wadanka saaxiibadana Eritrea ee jaarkanahay maanta yani xoriyada ay gaareen dhiigooda ku daadiyeen qiimaha ay ugu fadhiyeen waa la garan karaa marka shacabkan dhiigga u daadinay kuma khasaaray wuxuu noqon doonaa yani dalka Afrika ugu horumarsan oo runtii tusaale u noqda adduunka kale oo idil mudan Cabdiraxmaan waxa tahay mas'uulka hoggaanka arrimaha dibadda ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya bal haddii aan dhinacaas iyo siyaasadda iyo arrimaha taariikhiga aan ka soo leexano oo soo leexano bal hawsha adigu aad hayso Cabdiraxmaan ahaan bal waxaad noo ifisaa hoggaanka arrimaha dibadda muddadii aad haysay waxyaabaha uu qabtay ee uu ku soo kordhiyay bulshada guud ahaan hoggaanka arrimaha dibadda keligii hawl ma qabto runtii guulaha la gaarayo ee hoggaan walba uu gaarayo waa wax isku wada xiran weey min jaaliyaadka dibadda ilaa wiilka nafti huraha ilaa gabadha maartay muxuu ahaa xoolaha raacaysa iyo wiilka muxuu ahaa geel raacaya halgankan waa halgan shacbi ah weey wax isku wada xiran weey guusha meel laga gaaro ayaa dhalanaysa muxuu ahaa guulaha kale oo isku wada xiran guud ahaanna abaalka koowaad iyo runtii guushan maanta la gaarayo ummadan ay gaarayso waxa weeyaan waa wiilka nafti huraha iyo gabadha nafti huraha dhiigooda daadinaya abaalka iyo maamahada koowaad ayagaas kale
marka guushay gaaraan banaayo nagu muraayad u nahoon yani haddaan nahay ama arrimo dibadda ha noqoto ama warfaafin ha noqoto ama dhammaan hay-adaha kale ee halgankan wada ha noqotee waxaan muraayad u nahay yani aan reflect garayna ingiriiska wax lagu yidhaahdo waa dhiigga ay daadinayaan gabdhaha iyo wiilasha soomaalida ogaadan ee gudaha ka halgamaya marka ma hadda koowaad ayagaas kale yani cid kaloo guushaa sheegan karta waxaa weeyaan annagu garab istaag baannahay. haddaan usoo noqdo hogaanka arrimaha dibadda jabhadda wadaniga xoreynta ogaadanya wuxuu u xil saaran yahay in adduun weynaha uu ka dhaadhiciyo qadiyadda soomaalida ogaadanya kow inuu ka difaaca xaqa shacabka soomaalida ogaadanya iyo halganka muxuu ahaa ay jabhadda wadaniga xoreynta ogaadanya ugu jirto inay xoreyso. wuxuu kaloo u xil saaran yahay inuu muxuu ahaa usoo helo saaxiibo u kusoo kasbo halganka taageera. wuxuu kaloo u xil saaran yahay inuu u raadiyo kaalmo dibadeed. marka guud ahaan yani hogaanka arrimaha dibadda runtii howlo guulo badan buu ka gaaray. wuxuu ku guulaystay in maanta muxuu ahaa qadiyadda ogaadanya ee UN ka gaadhay in UN-ku intuu wafdi soo diray for the first time taariikhda ogaadanya fact finding mission ogaadanya lagu yimaado. wuxuu ku guulaystay in muxuu ahaa Geneva oo muxuu ahaa meesha xarunta labaad ee UN-ka in sanad walba ugu yaraan 3 goor qadiyadda ogaadanya hay-adda xuquuqul insaanka iyo muxuu ahaa heshiisyada caalamka ee sida torturka haweenka siyaasadda iyo dhaqaalaha in topiga ugu muhiimsan ugu xasaasan marba laga hadlay qadiyadda ogaadanya ay noqoto. sidoo kale New York in haweenka adduunka marka laga hadlayo muxuu ahaa ilaa ugu dambe hadda 2 goor shirkii ugu dambeeyay New York in laga hadlo qadiyadda Soomaalida ogaadanya waxaa lagu guulaystay in baarlamaanka Europe iyo muxuu ahaa EU-da inay muxuu ahaa u qabtaan hearing qadiyadda Soomaalida ogaadanya taariikhda markii koowaad. sidoo kale baarlamaanka Mareykanka inuu qadiyadda ogaadanya heeran ku qabto. waxaa kaloo lagu guulaystay in dhammaan jaaliyadka ogaadanya oo ah yani runtii aan oran karno waa reflection siyaasadda arrimaha dibadda in laga bilaabo muxuu ahaa Canberra oo hadda aan caasimadda dalkan joogno ilaa laga gaaro Alaska oo Mareykanka ah in adduunka dacaladiisa ilaa 70 jaaliyad adduunka ku fidsan in meel walba baarlamaanada muxuu ahaa siyaasiyiinta haweenka adduunka meel walba dhalinyarada ay ka wadaan siyaasadda arrimaha dibadda maanta meel walba laga hadlayo. marka guud ahaan howlahaas ay qabanayaan markii lagu soo ururiyo waa guul siyaasadda dibadda jooxa ay tahay yani cid ku faani karta male hogaan ahaan anigu ma oran karo ka hogaan ahaan waxaan ku soo kordhiyay haba yaraatee waxaas jira ma oran karo laakiin waxaan u sheegi karaa in siyaasadda arrimaha dibadda oo intaas oo ay wadaan in guulo ballaaran aan gaarnay ama xag warbaahinada noqoto hatta meediyaha qorraxay maanta ay wareysanaya kaalinta halganka ka qaadanaya waan arki karnaa waxa weyn isu tagaas oo meediyada halganka oo kala duwan ama ha noqoto tan jooxo ama noqoto tan yani muxuu ahaa muwaadiniinta qiimaha badan sida meediya oo kale ay fulinayaan waxaas markay isu tagaan siyaasadda arrimaha dibadda ee jooxo hogaaminaysa ogaadaya waxaan oran karnaa guulo weyn baan ku soo kordhinay gaar ahaan laakiin shakhsiyan anigu kaliya waxaan soo kordhin kara malaha. su-aasha ugu dambaysa mudan cabdiraxmaan ee ku weydiinayo dabcan waxaad nagu soo booqatay dalka Australia safarkaagii Melbourne baad soo martay kadibna Perth baad hadda nala joogtaa kadibna waxaad usoo duulaysaa Sydney bal waxaad noo ifisaa Australia fikirkii aad ka aaminsanayd bulshada reer ogaadenya aad la kulantay muddooyinka ugu dambeysay shirarka aad la galaysay fikirkii aad intaadan minaad ka aaminsanayd iyo hadda fikirkii aad ka aaminsan tahay bal dadweynaha aan Australia hadda ka hor aan nimanin reer ogaadenya guud ahaanba Soomaaliya sideed u aragtaa? Maxamed aad baad u mahadsan tahay waxaan oran lahaa madaxda jooxa ku soo boodato Australia runtii waxa weeyaan waxaan halkan kula kulmay jaaliyad aad u qiimo badan aad ma aragtay muxuu ahaa dadaal badan u wada aad uga fog dalkii hase yeeshee aan filayna inay go'doon u ahayn runtii waxa koow aad arkaysaa waxa weeye waa dad dalka ay joogaan runtii qiimo ku leh oo magacna ku leh muxuu ahaa dad dadaalayana nolol waxna ku soo kordhiyay ma aha kale inay dalkan ka faa'iideen laakiin dalkan wax badan ku soo kordhiyay dad shaqaysanaya oo dadaalaya dalkii halkanba wax ka taraya. waxaan ku arkay dad guryo iibsaday waxaan ku arkay dadka ugu qiimo badan ama beesha Soomaaliyeed guud ahaan noqdaan yani waa dad ka muuqda sharaf ku leh iyo dalka dawladda iyo dalkan ay qiimeynayso dawladda xiriir calaaqaad weyn la leh oo fiican muxuu ahaa community-da u horeeya ee muuqda ee sharafta ku leh. waxaad arkaysaa meesha tagta xafiisyo qiimo badan bay ku leeyihiin ilaa ugu yaraan waxa weyn dal waa inkastoo dal uu yahay dalkan wadana waa qaarad weey يعني runtii waxaan oran lahaa yani jooxayna yani aad yani uthmaarisa halkan oo yani ay xooga saarto waa dal dihin waa dal qiimo badan dadka joogana dad qiimo badan xubnaha halka jooga jaaliyadka ana waa xubno lagu naalan karo lana tirsanayo halkan qayb wax ka qaadanaya يعني runtii waxa yani aad yani ka baxsan ogaadanya
oo si madax bannaan dal yani muddo yani 3 maalmood uu ka babo runtii waxaa yani wax lagu faanaa runtii taariikhda markii koowaad galay in yani jaaliyadda Australia ay calan ka taagtay dalka Australia jooxo waana taariikhda markii koowaad calan laga taago meel ka baxsan Ogaadenya calan si madax bannaan uga babanaya ودل أجنبي وكلشوا يعني ماس لقى سمية وحكلوا يرنتي يعني منانة العالم كوحاستانوها شركة قيمها بناء أستراليا الوقت السنة كان سنة كهوري جالياتك رنتي أو أي كسر قبل المسؤولين تجوحية دمان جالياتك وقاعدين على دونك سي شرفت العظمى مستين ورنتي مركان هالكيم دمان ومد الصومالي هالكان كل ما يكد كبح سنة با صومالي وقاعدين يعاد مارت يعني وقف عنا نور الشيء إنه عشلي يعني رنتي أيها تصالية ونقضي محا وحي كده ينكران marka jaalida ogaadeen runtii waxaan u arkaa impression aad u qiimo badan ma ka qaaday dad abaabulan si fiican u halgamaya isjacal muxuu ahaa khilaafkuna ku yar yahay runtiina diyaar waa inay horumarka halganka qayb qaataan waana saan sheegay runtii waa dad wax qabada dad shaqaysanaya way waa runtii waa taajiriinta ogaadeen halkan ay joogaan waxa weeyaan waxaan rajaynayaa mustaqbalka inay noqon doonaan Bill Gates ka muxuu ahaa ogaadeen halka soo bixi doonaan waan rajaynayaa marka Soomaalida ogaadeen waxaan leenahay waan ku dhiirigelinaynaa Australia inaan la moogaan lafteeduna wax laga yaabaa in cagta ku badino maartay martigeliyada dadka dibadeen in cusla inaan culays ku noqon ka cabsanaya waana ku dhiirigelinaya dhamaan xubnaha jooxa inay soo boqdaan Australia arkaan horumarka ay gaareen jaalida ogaadeen ee Australia mas'uuliyiinta jooxa halka joogta laftoodana waan u hambalyeynaa runtii waa jaalida horumarka ay gaarayso iyo dadaalka sameynayso kama imaan meel cid ay runtii waxay ka timid yani dadaalka iyo muxuu ahaa yani aragtida dheer ee mas'uuliyiinta ogaadeen ku nool ee u horeeyay gudoomiye ku-xigeenka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen iyo xubnaha kale guddiga fulinta ah laakiin hadda waxa weyn kulay ma hadda kuwa lafteeda waxa iskale mas'uuliyiinta sare oo kamid yahay mudane Maxamed Ibrahim oo xubin golaha dhexe ee xiriiriyaha Australia sidoo kale yana iloobin runtii unugyada iyo mas'uuliyiinta xubnaha mas'uuliyiinta jooxa ee halkan ka halgamaysa aan ku soo arkay qaarna aan ku soo arkay muxuu Melbourne qaarna halka joogaan gudoomiyaashii dhamaan xubnaha kaleba ayagana ma hadda ayaga iskale waxa iskale sidoo kale ururada haweenka dhalinyarada oo runtii kaalin weyn ka qaatay waxaan ku arkay shalay markaan joogay muxuu Melbourne يعني أورك لنا هذا ملبون ولا كل مي محوها قضية في advocacy سميني ضد أجنبية رنتي شركة قريب قالوا قيمة بدنا سوق الجاليد هالكاس هالكان لفت هذا وحلي شيء إنسان سوق أي دال بدنا جوادان مركا رنتي وحن ليه وحن نسينا بلاد كواد ضد جاليد أستراليا ود ما سنتين hadda wadayaal waraysigeennii gaarka ahaa ee aan runtii fursadda u helay inaan ku waraysano madaxa hoggaanka arrimaha dibadda ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen iyo mudane Cabdiraxmaan intaas ayuu ku egyahay waxaan si aad uga mahad celinaynaa mudane Cabdiraxmaan oo jaaniskana siiyey annagoo runtii muddo dheer sugayna inaan barnaamijkan ka diyaarino aad iyo aad buu mahadsan yahay waxaa isna mahadsan oo kaamirada naga duubaya Axmed Ahib oo runtii isna kaameramanka barnaamijka duubaya isna waan u mahad celinaynaa Cabdiraxmaan aad iyo aad baan ku mahad celinaynaa mar kalena waxaan ku leenahay mar saddexaad iyo mar afraadba ku soo dhawaada Australia noo imaada na soo booqda dad badan baa waxa laga yaabaa inay ka aaminsan yihiin Australia inay meel fog tahay Australia waxa weeyaan waa qaarad aad iyo aad u ballaaran bulshada ku nool ee Soomaaliyeedna sida Cabdiraxmaan sheegay weeyaan dadka Soomaaliyeedna inta badan waa dad runtii isjecel oo ma aha ilaa heer mayna gaadhin meelaha qaarkood uu dhibkoodu badan yahay marka aad iyo aad baan ka mahad celinaa fursadda qaaliga nasay waadna ku mahadsantahay soo dhawo mar kale adaga mudan waa mahadsantahay intaas ayuu ku egyahay waxaan idin la socodsiinayay aniga oo ah Nimco Sharaf dhanka kaamirada waa Ahiib Sheekh tan iyo kulanti dambe waa bahda Qoraxay Media oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh